حديث بدل يكتب أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله marka waxa weeyaan waxa soo galay oo laga hadlayaa wixii rasmi ah oo qof gacantiisa ku sawiro bani aadam arigee loo fardo waxba sawiraya gacanta soo qaatay ama waraaq ku sawiraya ama gidaar ku xardaya ama loox ku sawiraya wixii gacantiisa ku sawiro oo muuqaalka qofka bani aadamka taasi waa koow ay soo galaysa wax kasto oo naxti ah oo isagoo jurmi leh yana waa soo galaya hadal ma laha jurmi waxa weeyaan waa wixii hoos la taago sawirada ay goor sawiraan fardaha iyo maaliya maaragtay ay guriga dhigaa meel mutaxafid ay dhigaan wax taagan maaragtay muuqaal leh ama taalooyin iyo baalan ka sameeyaan dadka bini'aadamka maqaadigoor ay maaragtay doonayaan inay muujiyaan iyagoo ka raba markaa qof taariikh la iyo sawirkiisa meel taagayaan subhanallah sidii xamar sidina abdul hasan oo kale reerti dul taagnaan jiray iyo dhagax tuurkii wixii saw taagan waxa noocaas oo dhami waxa rashada islaamka sawirada ahadiith oo ka hadlayaan waxa weeye waa kuwaas oo wax hadal ay kuwaas malaha oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam calayhi markii uu hadlay dadka waxaan u sheegayay sawirada noocaas ay adduunka yeelay oo ka hadlay rasuulku sallallahu alayhi wasallam calayhi waxyaaba marka u baahan ka hadal iyo bal in isdul taago la faafaahiyo waa wixii aan waxaan sawirka hadda aynu hayno oo loo yaqaan maartay sawiradan kamaradaha iyo waxaan fotografiga iyo waxyaabaha noocaas oo kala ah hadda aalaadka casriga ah lagu sawirayo maxaan ku dhahdaa iyaga xukunkoodu muxuu noqonayaa sawirka ahadiisa ma soo galiyaan ma soo gali maayaan horta marka hore mas'alada waa mas'ala naazila ayaa la yiraahdaa waxa kale waa waxa dhawaan yimi waqtiga hore ee rasuulka iyo saxaabada iyo salafkii hore rag daba xitaa waqtigoodii waxa la yaqeenay ma qalab kale markay waxaan yimaadeen oo qalab kale la helay oo la iktishaafay oo iktishaafki qaarkood waxay ku 839 miilaadiga ayaa la helay Ingiriis oo William Henry la oran jiray ayaa u horeeyay wax yani sawirka fotografiga marka weeyaan mas'aladu markay naazila tahayna culimadii marka casriga joogtay ama waqtiga nool waxay markay yimaadeen ba fatwada loo celinaya ma la haleeshiinay ahadiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi misal haleeshiin ma yo kari sawirkii rasuulka leey ma aha laba qowl ba ku jira ayna qarkood waxay yiraahdeen waxba noo kala saarina waa isku mid kan iyo kii hore waxa ka soo reebayaan wixii marka uu loo baahday aan dhameystireen baasaboorada sawirka loo qaaday nuska qofka dhameystireenayo taystarayaasha iyo wixii noocaas oo kale way soo reebeen oo raga ku tagay muftiga Masar Sacuudiga Maxamed Ibrahim ala Sheikh Al-Wajiri Sheikh Abdul Aziz Al-Bazi Albani awayaan ragaas halkaas culaas martay waxay daliishadeen waxa kamid ah taswiirta fotografiga waxay leeyihiin ama waxaan kaamirooyinka iyo ka bixi maayaan inay yihiin min anwaac taswiirna ka bixi maayaan mid kale waxay yiraahdeen asalka shirkuba wuxuu ka bilowday wax la sawiray marka baabka waa in la xiro iyo qudooda deyn hadhowto wixii uu noqdo cibaado baabkeed galo baqinteeda ileedo xadiisi ashadu naas cadaaba yawm alqiyaama alladina yudaahiyuna bi khalqi illah marka iladaasna way jiri kartaa bay leeyihiin oo yaani mudaaha in loo akaysiinayo la shabahayo yaani maaragtay wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray qowlka labaad oo jumhuurtu ay qabto culimada inta badan ee mucaasiriinta ahi وجائز بيلي وانا بنايين وحي نوعاني وحي انا marka sawir de shay xul la sawiray ama dumar qaqawan waxaan sharcadu xarimin maaragtay oo de loo gooy marka hore asalkiisa ama la soo muuqaalkiisa aan saxanayn in la qaadiyo soo ma banaan aslaanba laakiin waxa laga hadlay wixii marka caadiga ahaa sawirka caadiga ahaa oo ama cilmiga la nashrin haado ama maaragtay wuxuundani ku jirto caadi ahaan asalkiisu gali maayo weeyaan sawirkii xaaraanta gali maayo Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen ayaa kowka raga aymada casriga ee masalada qaba majmuuc sameey mujallad koowaad safxada 172 iyo mujallad labaad 250 ila 250 القول المفيد على كتاب التوحيد مجلد صفحات صفحه 204 الشرح الممتع مجلد كمان صفحه 219 ميراث صدق نقريسه صالح الحيدان شيخ اللي ياده ولكن مصر جاي متولى الشرعاوي اللي جري
sayid saabiq oo masri qudhiisu cabdiraxmaan cabdilkhaaliq rag fara badan oo hadda mucaasiriinta ah arrintaa way mareen waqtigu soo baxay caalamka islaamka soo galay sawirku kamaradaha fotograafka baalka ayaa u horreeyey waxaa risaalo ka qoray ninkii sheekha loolan jiray maxamed bakhiit almutiici oo muftigii masar ahaa alxanafi nin sheekho caalim ayuu ahaa min shuyuukh alazhar buu ka mid ahaa ninkaas kutub fara badan uu lahaa oo uu ka mid yahay radintii cali cabdirazaaq kitaabkiisa usuul xukm uu ku radiyey baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah jamcu jawaamic inuu sharxiyey nin caalim oo muftiya buu ahaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo aljawaab ashaafi fi ibaaxati taswiir alfotograafi kitaabkaasuu qoray wuxuuna dhashay 1914kii 1935kiina waa dhintay marka waa nin horreeyey waqtigii soo baxday uu masalada aad uga hadlay oo leeyahay arrintaas waxa dhibaato inay sawirka lahayn way bannaan tahay buu taqriiriyey waliba ninkaasi waxa leeyahay taqaacudka 6 sano markuu gaaro masaaridu oo markuu 6 gaaro waa mutaqaacid shaqada dawladda ma sii wadi karo waxay isaga lagu bilaabay oo qisay lahaydoo isagoo muftigii waddanka ah ayaa meel masaajid iyo dhul bannaan oo masaajid dhisan iyo dhul uu leeyahay ayaa qolay dawladdu waxay damceen meesha maamulka markaa hayay inay qaataan dhulkaasoo wuxuu uga faa'iidaystaan markaasana muftiga hala weydiiyo markaasuu rabbigii lahaa hadduu idiin qadaa oo maxamed bakhiit almutiici markaasuu najiib isku dhow xitaa kitaabada marka way iska ka khaldami karaan ee waa inaad kala ilaashataa way kala duwan yihiin marka ninkaas uu horreeyay raggii qoray maxaan ku risaal ka qoray oo masaladan yani isbaatiyey ibn Uthaymin wuxuu leeyahay الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فورا وليس للإنسان أي عمل نرى أن هذا ليس من باب التصوير ولباك الفوتوغرافيا مركز صار وقف قفك مركز صار صاريو دقدقة هذا نوعنا وحول ما هبولي عملك إنسان كان واحد شغال قملها قلب كاسم كوحيي مركز كاملها من باب التصوير لكن وحين نقول نقل صورة صورها الله وحي إلهي أبو رقفك بني آدمك وإلهي أبو هلك تاجن بعد صورتي مقال كثير صورتي والنقلي وصورتي بولي وأظن كريم مركز قملها waxa la yiraahdo ficil uu isagu arintan sameeyay oo sawir uu akaysiinayo oo meesha la leeyahay yudaahi bi khalq Allah wax mudaahada oo akaysiina oo shabaha ee ninka wax sawiraya intuu qalinka saaw qaatay buu qof bani aadan indhihiisa iyo lugihiisa uu sameynaya meel buu ku xardhaya wax buu qoraya muuqaal buu sameynaya uu akaysiinayo abuurkii Ilaahay abuuray laakiin ninkani muuqaal Ilaahay abuurka taagan mubaashaya ku qabtay uu sawirka ku qabtay isagu markaa wax ma samaynin waxana ma sawirin aaladaas buu isticmaalay marka soo eegtana waa kii Ilaahay abuuray uu basawirkiisii muuqaalkiisa halka yaala subhanahu saasuu tawjiih xulay marka hadii qof warqad ku soo qoro warqad marka ku soo qoro adoo warqad baad qaadatay photocopy baad gelisay warqada photocopy markaad geliso soo saarto miyaa la oran karaa ninkan wax sawiray warqada isaga qoray ninkan qoray khadka waa la yaqaan waa hebel qoray khadka hebel weeyaan baa la oranayso ma marka muxuu isagu dawrku sameeyay muxuu yahay khadka adigu aad qortay qoraalkii hebel baad waxa ka reebatay maxay halkuu baad ka samaysay marka waxa adigu ekaysiisay oo aad u qortay oo maxaan ku lama oran karo khadkan isaga leh lama oran karo hadaa waxay ka tahay akhrin kara ninkan sawiray aan akhrin ba karin baad karta subhan taas waa mid kale waxay leeyihiin oo kale nusuustu waxay ku timi de shay la sawirayo suura muayyana ah oo ficil qof uu sameeynaya ficil uu sameeynayo oo gacantiisa laakiin ninkani alaabtaas uu dhaqdhaqaaji waxay ka dhigan tahay ninku hadduu biyaha soo dul taago muuqaalkiisa wuxuu ka arkayaa biyaha maxay wuxuu ka arkayaa muuqaalkiisa ka muuqda oo inaad biyaha ka dhaaf muuqataa ma dambi ay keenaysaa halka laga ama muraayada markaad qaato saa isku eegto muraayada iska dhex aragtaa oo adiga halkaad ka muuqato ma wax mashaakil ku jira muraayada hadii lagu reebo waxay sameeyay muraayadu halkaas ka aragtaa oo isku daawanaysaa wixii halkaas iska aragtaa la reebay marka waa xabsu dil harkii oo la reebay qofka harkiisa meesha lagu reebay marka ma aha wax la yiraahdo mudaaha li khalqi ilaahi ma yani taariikh marka saa loo eego waxa doonaysaa inay saxta insaan loo qiimeeyo aanay ahayn wixii loo jeeday sawirkii rasmiga ah ee marka la eego diidmada la diidayo inay tahay mudaaha li khalqi ilaahi cilada ugu muhiimsan ay tahay mid kale wuxuu leeyahay acmaashu wixii aan taabudi ahayn asalkiisu waa al-hil asalku
والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن شارع وكيلها marka asalku waxaan ahayn cibaado ahayn iska maaragtay muaamalaad iyo waxyaabaha yani kale la sameeyaa waxay galay min baab al-wahid suuqaysa asalku mid kale waxa ku leeyahay waxa loo qiyaas qaadan karaa الرقم في الثوب الله قال رقم كالثوب يكون يالا إلا رقما في ثوب وفي صحيح مسلم كون يالي سمارك وعقلوا كم يدلوا دليشان هي السحادي يقول دليشان رقم بنيي رسولك هو قال عائشة رضي الله عنها لعب البنات واحد لهذا باران بوم بلد إلى هذا أما العروسة وقبل ما كوا صوت يصور نعم مقال له وجرم له قبلها ما رأيت ما عليه عروسة لودي دي ما رأيت كو عياران سمارك بوم بلد سكر ميزان كواس ودي حديثك أبو داود وري رسولك ومركو طبوك يا خيبر كسر نقضي ما هذا يا عائشة قال بناتي وقبلها يجيتي رسول كل أركي فرس لبق قرب اللي يكون يشتراه فرس نصور اللي يكون يشتراه وكان سوي المحوية هي وحن كده موضة وكان سوي فرس ومحاكل ودوش كم موضة ولبق قرب يتي قال فرس له جناحان وفرس لبق قرب له حاجة نقول فرس لبق قرب له وقالت أما سمعت إن سليمان خيرا لا أجنحة سليمان مارتي فردق ضوره أيها الناس مغربيت رسولك رسولك صلوات الله وسلامه عليه عزيز صحيح لكن رسولك حق قري ومن باب الإقرار بالي هذا هو شيء عندك كويسي وأي ستي محي يعني صوره أي مارتي عندك كويسة أو بومبلوين ويكون شيء يكون عياريسي ومارتي عندك كويسة رسولكنا وقري صلوات الله وسلامه عليه أي ماذا قاربه وحيكون نقاشروا إلى هذين تاسوعين قبل التحريم intaan la xarimin bay ahayd markay sawirkan haysatay lagu xalay nasxiga baab nasxiga dii laga hadlayo ihtimaal mujarrad iyo iska malawaal iyo qiyaas iyo weelata ku socon maysa waa in taariikh leeyahay bal waxa la fahmaya waxa mutaakhira ahadiisa inay boombalada yalaabta haysatay inay dambeysay ba sax waayo xilligaas ee qasoo tabuk markuu ka soo maday rasuulku ama khayba bay tabuk xilli dambe xilligaas ay iska Aisha radiyallahu anha midka rasuulku uu qiray haysashada ay haysatay dambaa ku jirto oo mar haday haweenay tahay la qabo gabar yarna way ahayd inay gabar yar bal haday Ilaahay ba siiyo gabar yar say maaragtay gabadha u ciyaarsin lahayd iyo waa nooc mugtay tadriib ah soo tadriib ma gabadha timeedii loo dabayo si loogu xayiyo waa fursad masax ku jirta marka masaxaas wala yahay sharci ilaalisay oo marka waxaan la duubayo ama cilmi lagu duubayo ama duruus lagu duubayo ama muhaadaraad lagu duubayo أما الندوات علمية للضوبية مساك ما جتمي أي قلت مثل يعني صوت وصورة تأثير كإليه وحلم إذا مجرات مركب هو إذا قلت مصلحة وين باكو جرته دروس علمي إلا فافيه وقنوات للصمعيه يعني لقى فافيه دينته وخير خلق الضوبه ولقى الله محان كل دينته نشنتين قال دي بقى وصل استقراراتيه دينته كل دقة الله مياه الشيعة دي بقى إلى شريعة صدق وحكبضا لغة عربية كبحية وعالم كعرب تونك وجهن واللي سيدين أيوه شيعة أفكارتي الحميدية وحقرنا مع هذا تابك وحبا يلا الطوبين أكثر غمرني لا تكبوا مضيبا مركا وين لها قروات ديار سن أو مناك سن أو إسلامية أو سفي عن ماره وطرحينية مناك إسلام كا وين لها لأبا أبولاه واللي قفايته جهاز عدوه وصابيري لقى فايته أي بقى النقاش بدأ وسكتشي هذا وبارة عيال كان إلا أن تحريمك أو مضاهات كان iyada qudhida waxay leeyihiin marka laga eego foto baalkan sawirkan kamarada wax la halmaana waxa la yiraahdo noqon mayso mudaaha li khalqillah wa habsu dhil aaladi waxay qabatay wixii muuqaalka qofka ay meesha ku reebtay marka laakiin sawirka marka la yiraahdo waxa weeyaan waa wax gacanta lagu sawirayo qofkii waxba ku dayanaya muxaaka iyo jilid iyo waxba ku dayanayaado oo raba ka dhigay sameeyay laakiin qofkani قالوا كاسو دقاجي موقالك إلهي أبوري يوم ماشي قريبي تاسنا مضاها لما يلهدو وحد مو دمرك قولكاس بوحيه قولك أرجع إلى راجع سنة معتمد كا رقبة ضروري ماذا نعصق أنا أي قوان كاسا وحيه مكا قولك أي نحوشين